Yaasir iyo Nafisa waa lamaane Soomaaliyeed. Yaasir ayaa ka sheekeynaya qisadan oo ah mid aad u xanuun badan, waxa uu ku bilaabayaa sidan. Waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa, balse waxaan ku soo barbaaray dalka Sacuudi Carabiya. Nasiib wanaag sanadkii 2000 ayaa waxaan nasiib u yeeshay inaan soo caga dhigto magaalada London ee dalka Ingiriiska. Gabadha aan ifka ugu jeclaan doono ee Nafisa ayaa waxaan isku dhex baranay gaari bas ah oo ka dhex shaqeeya magaalada London dhexdeeda. Markii aan baska isku dhex baranay Nafisa ayaa waxaan kala qaadanay telefoon nambarkanagii gacanta ee aan wadanay. Sanadkuna waa 2005. Waxaan bilaabay inaan qadka telefoonka ka xiriiriyo Nafisa, isla markaana iyana waxa ay ii arkaysay nin aad u wanaagsan oo waxa ay jeclaan jirtay inay waqti badan ila qaadato. Mararka qaarkeedna waxaan ku kulmi jirnay guri ay ku nooleed gabar aanu qaraabo ahayn. Aniga iyo Nafisa ayaan waxaan isku noqonay lamaane aad isu jecel oo aan kala maarmin. Waxaana alaaba samayn jiray waxyaabaha ay jeceshahay Nafisa. Sidoo kale iyana waxa ay iga ilaalin jirtay wax kasta oo dhibaato ii keeni karaysay ama aan dhibsanayo. Gabadha aan ifka ugu jeclaan doono ee Nafisa ayaa waxa ay jeclaan jirtay inay markasta ii soo qorto dhambaale jecel ah oo ay ku cabirayso heerka uu gaarsiisan yahay jecelka ay qabto. Anna waxa aan aad uga heli jiray inaan akhristo dhambaalada xiisaha leh ay ii soo qori jirtay gaclisadayda. Sidoo kale Nafisa waxa ay ahayd gabar markasta jecel inay maqasho waxyaabaha ay ugu jeceshahay iyo waxyaabaha ay ugu neceb tahayba, iyadoo taasi ku muujinayso waxyaabaha ay doonayso inay mustaqbalkayga la wadaagto. Bartamihii sanadkii 2008 ayaa waxay labada qoys ee aanu ka dhalanay isku afgarteen inaan isguursanno. Waxaanu ku aqalgalnay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Waxaana magaalada Dubai aanu soo wada joognay muddo dhan 3 bilood oo aanu ku soo qaadanay nolol macaan. Iyadoo ay xaaladdu sidaas tahay ayaa waxaan dib ugu soo laabanay magaalada London oo aanu markii horeba wada joognay. Markii uu guurkeenu ka soo wareegay 8 bilood, isla markaana ay Nafisa ii leedahay 4 bilood oo uur ah, ayaa waxaa dhacday inaan isbeddel ballaaran kala kulmo Nafisa. Markastoo aan Nafisa weydiiyo sababaha keenay isbeddelka xoogga leh ee ku yimid ayaa waxay igu dhihi jirtay, saaxiib niyad kuuma hayo, iska kay fasax oo orod oo guursanaa kale oo niyad ku hayso. Hadalkaas waan la yaabi jiray, laakiin sidaasi kuma aanan quusan. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxaan maalin maalmaha ka mid ah aan Nafisa ku iri, walaalay bal ii sheeg sidee wax u jiraan. Markaas ayaa waxay igu tiri, orod oo la soo baashaal naagta kale aad qabto. Naag kale yaab. Anigoo aan waxba naag qabin ama aan la sheekaysan ayay igu tiri ereygaas. Waxaana igu soo yaraaday adduunkii oo dhan. Waxay sheekadu isku cakirnaataba yaan waxaan maqlay Nafisa waalidkeed oo leh ninkan kuuma qalmo ee orod iska soo fur. Caqli xumida Nafisa iyadoo aan waxba hubsan ayay igu kicisay buuq iyo qaylo xoogan. Waxayna igu tiri, ifur ama aniga dhimanayo. Markii aan arkay inay xaaladdu cirka isku sii shareeraysa ayaa waxaan garwaaqsaday inaan iska furo. Muddo kadib ayaa waxaan maqlay in Nafisa ay igu soo diri jireen qoyska ay ka dhalatay. Ilaa hadda ma aqaan sababta keentay in Nafisa qoyskeeda ay ugu soo diraan gabadhooda. Laakiin waxay ahaataba waa waalidkeed. Soomaalida iyadoo ay fiican yihiin intooda badan ayaa waxaan haddana jira kuwa dulmiya qoysas dhisan. Kuwaana waxaan ugu baaqi lahaa inay Alle ka cabsadaan kana xishoodaan. Nafisa oo hadda ii haysa hal gabar oo 2 sano jir ah ayaa waxay iga codsatay inaan dib ugu soo laabto. Mana garanayo qaab aan ugu laabto. Maxaa yeelay anigoo aad u jecel ayay dhulka igu jiiday. Weliba waxay iga xumaysay guurkaygii ugu horreeyay.